isbedelkii ka dhacay Soomaaliya ee hogaaminayeen madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre oo cimri jirsaday 70 maalmood ma ku taagan yahay wadadii dib u soo celinta qarannimada maxaa se isbedelay oo la xusi karaa waa xog ururintii telefishinka Universal si loo helo miisaan sax ah oo lagu cabiro xaaladda siyaasadda Soomaaliya waa in taariikhda la raad raaco oo wax ka soo barano dhacdooyinka iyo meertooyinkii isguray ee soo taxnaa 25 sano ee ugu dambeeyay Soomaaliya ma aha dal leh dawlad dhexe oo dhisan oo dalkeeda gacanta ku wada haysa waa qaran burburay oo u kala qaybsamay mandiqado ama gobollo maamul goboleed qabiilo cimaamadeen oo samaystay calan madaxweyne baarlamaan iyo wasiiro haddana ka fakaraya inay ra'iisul wasaare samaystaan dagaaladii sokeeye ee isgarab fariisigii siyaasadeed waxay Soomaaliya ka barteen iyagoo dawlad hagaagsan lahayn oo sharci kala xakameeyo lahayn inay si dimuqraadi ah isku doortaan kii laga adkaado uu hogaansamo dimuqraadiyadda oo xilka wareejiyo isagoo tixgelinaya rabitaanka shacbiga taasina waxay noqotay guul siyaasadeed oo lagu amaano madaxweyne Farmaajo waxaa la soo doortay 8 bishii February ku dhawaad 70 maalmood ayaa ka soo wareegatay xilligaas talaabadiisa koowaad waxa ay noqotay dhismaha hay'adaha dawliga ah waxaana la soo dhisay ra'iisul wasaare wasiiro si loo taabageliyo habraaca dawladnimada adkeynta maamulka iyo sareynta sharciga xog ururintu waxa ay eegaysaa doorashada madaxweyne Farmaajo iyo magacaabidii ra'iisul wasaare Khayre saamihii siyaasadeed ee hore loo qaaday iyo duruufaha adag ee ku horgudban doorashada kadib dadka Soomaaliyeed baahida koowaad waxay u qabeen ammaanka hirgala geyiga Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho sidaas oo kale cadaaladda iyo dhismaha adeega garsoorku waxa uu kamid ahaa baahiyaha kaliya ee taagan dib u dhisidda ciidamada wuxuu ahaa lafdhabarka dawlad wax qabad leh oo loo dhan yahay arrimahan iyo qaar kale oo badan waa halbeeg baahi weyn loo qabay si loo soo celiyo sharciga iyo ammaanka laakiin haddana talaabooyinkaasi waxa ka soo hormaray qodobo kale oo muhiimad qaas ah u lahaa dawladda dhexe xog ururintu waxa ay soo qaadanaysaa madaxweyne Farmaajo waxa markii ugu horeysay uu ku dhaqaaqay inuu wax ka bedelo xafiiska madaxweynaha wuxuuna iska fogeeyay dhammaan howlaha ra'iisul wasaaruhu lahaa oo madaxweynayaashii ka horeeyay ay caado u ahayd inay dhex galaan shaqooyinka ra'iisul wasaaraha kadibna keeni jiray khilaaf iyo isqabqabsi waxa kale oo uu wax ka bedelay faragelinta dawladaha dariska ee siyaasadda Soomaaliya waxaana talada Soomaaliya uu ku soo koobay gacanta Soomaalida ilaa hadda kulankii uu la qaatay madaxweynaha Kenya waxa uu hirgeliyay in diyaaradaha Soomaaliya aanay ku hakan wajeer oo qofka Soomaaliga sharafkiisa iyo waqtigiisa lagu cayaarin warbixintu waxay soo xiganaysaa in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu soo rogay in shirka golaha wasiirada in xubnaha golaha wasiirada aanay daqiiqad ka daahin xilliga fadhiga golaha wasiirada mas'uulkii kadib dhaca shirkaasi aanu fariisanaynin shirka golaha sidaas oo kale waxa ra'iisul wasaaruhu soo saaray waqti shaqaalaha dawladda ay shaqada galaan iyo xilli ay shaqada ka rawaxaan labadan arrimood waxay saldhig u yihiin anshaxa mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha dawladda oo ah adeegayaasha qaranka iyo shacbiga Soomaaliyeed musuqmaasuq waa cadawga koowaad ee dumiyay dawladihii ka horeeyay dawladda hadda jirta xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa muhiimadda koowaad ay siisay ka hortagga musuqmaasuqa waxaana xubnaha golaha wasiirada cusub ay dib ugu noqdeen dhammaan howlwadeenada iyo xafiisyada dawladda wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso ayaa markii ugu horeysay shaqo ka joojin ku sameeyay agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta inta la soo afmeerayo baaritaan musuqmaasuq ka dhacay wasaaradda warfaafinta sidaas oo kale waxa xilkii laga qaaday agaasimihii maamulka iyo maaliyadda wasaaraddaasi weli ma dhicin in ilaalinta musuqmaasuqa mas'uuliyad dawladeed ay xilkooda ku waayaan sidaas oo kale wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Beyle ayaa bilaabay in howlaha canshuur ururinta ee wasiirku uu gacantiisa ku qaadayo si uu u kuurgalo hanaanka shaqada iyo howlwadeenada dawladda sidoo kale wasiirka amniga Ducaale ayaa kormeer shaqo oo saqdiga dhexe habeenimo ku marayay saldhigyo ciidameed waxa uu shaqada ka eriyay taliyaal iyo saraakiil ciidan oo howlahoodu uu gaabis galay markii goobahooda shaqada laga waayay warbixintu waxay qiraysaa inay jiraan talaabooyin wax qabad leh oo loo qaaday dhinaca dawladnimada waxaana muuqata inay jiraan isla xisaabtan iyo dabagal joogto ah oo lagu xaqiijinayo shaqada iyo howlwadeenada dawladda inkastoo ay muuqdaan shaqo la qabtay oo ka badan 70 maalmood haddana warbixintu waxay eegaysaa ammaanka sii xumaanaya oo maraya heer ka liita sanadkii 2016 warbixin ay soo saartay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa xafiiskeeda Soomaaliya ayaa sheegay in sanadkii 2017 oo maraya
bilihii ugu horreeyey ay weerarada ka dhanka ah dowladda ay sii xoogeysteen ayna ku geeriyoodeen 337 qof waxaana ay qaramada midoobe sheegtay in weeraradu ay kordheen 50%, dadka geeriyoodana ay u badan yihiin dad shacbi ah. warbixintu waxa ay soo xiganaysaa tallaabooyinka madaxda dowladdu qaadeen si wax looga qabto ammaanka guud ee dalka. waxaa xilka laga qaaday toddobaadkii hore dhammaan taliyayaashii ciidamada iyo guddoomiyihii gobolka banaadir oo dhammaantood mas-uul ka ahaa oo xukumayay ammaanka sii xumaanayay. waxaana lasoo magacaabay taliyaal cusub iyo guddoomiye cusub oo gobolka banaadir uu yeelanayo oo laga filayo inay wax ka bedelaan ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka. sidaasoo kale waxaa magaalada muqdisho lagu qaban doonaa maalmaha soo socda shir ay soo qabanqaabiyeen dowladda dhexe ayna ka qaybgalayaan dhammaan madaxda maamul goboleedyada, kaas oo looga hadli doono iskaashiga arrimaha ammaanka iyo guud ahaan xaaladda siyaasadda ee waddanka Soomaaliya.